السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذا سلامي لما أنا سحبت كحيران جنال كسود وهذا ما أنت عشر كانوا وحكوسة بسنة هاي سكوير وحالة مركز اللي بحبين أي سارين هل فيل أما هل دايجونال إسلام مركزنا حبنتي هراء لسوير ري حبنتها سوي كقايل سنت هاي مدة دمبه تصال هان حتى example كورتينا كم مقدر example كورتينا كم مقدر waxaa hal diagonal saaran waa kuwiintii iyo boqorkii laakiin yaa soo horeeyo boqorka soo horeeyo laakiin markii la qiimeynayo boqorkii kuwiintii qaalisan boqorka qaalisan dabcan sababtoo boqorka hadii laga qaato meeshaba raqiisi qaali waaba dhamaato ciyaartii ka dhamaatay sidaas awgeed cadaanku wuxuu isticmaalay squirrel oo b3 ayuu wuxuu ka dhahay check sidaas awgeed waxaa meesha laga qaatay kuwiintii waxaa qasab ah marka xubintan hore si ay u badbaado maadaama ay ka qaalisantahay midaas dambe kama qiimo badna inay meesha ka wareegto dadka markay bilowga yihiin waxay isku qaldaan squirrel iyo bean maxay ku kala duwan yihiin squirrel iyo bean squirrelka xubinta hore soo horeyso qaali ah markii la weeraro waxaa qasab inay meesha ka wareegto si ay xubinta kale uga tagto oo gadaal jirta laakiin beanka waxay tahay maba dhaqaaqi karaba xubintan la soo weeraray barteeday taagnaanaysaa sababtoo ah waa bean haddii meesha ka dhaqaaqdo waxaa laga yaabaa boqorkii oo gadaal taagnan oo jeeg galo marka qasab waaye inay taagnaataa laakiin squirrelkana waxaa qasab ku ah inay aad meesha ka dhaqaaqdo halkaasi ku kala duwan yihiin marka aan kala fahmo bean horaan u soo geliyay haddaadan daawanin fadlan daawo hadda example-ka horteena ka muuqda aan fiirina bal keebaa bean ah keebaa squirrel ah ruugga yaalla b1 wuxuu sameynayaa squirrel ruugga yaalla G1 wuxuu sameynayaa bean marka waa inaad kala fahantaa waxa laga wado squirrel iyo bean aan hore u gudubna marka waa gartay bal example kan kale isku day inaad sameyso squirrel misku dayday maxalisay hadaba squirrel waxaad ku sameyn kartaa bishop f3 waxaad weerartay xubintii hore oo qaali ah waxa qasab ah marka inay meesha ka wareegto dabadeedna aad qaaditid xubinta dambe sababtoo xubintan hore waa qaali waa meesha iskaga wareegaysaa tii dambena awood ma laha inay difaacdo example kan kale waa example caan ah waa why to move halkaana waxa ka dhici doona squirrel runtii horta waxaan sababta u baranayna waxay tahay waxay ka anfacaysaa real game kaaga marka dheelaysid ciyaartaada runtii marka dheelaysid haddii aad marka aad squirrel iyo bean double check fog waxa dhan aadan garanaynin discover check ma sameyn kartid dabcan ma awoodid inaad sameysid marka waxaan waa basic tactics inaad barato waaye si aad ma taqaanaa real game kaadana aad ugu dabaqdaa hadda ciyaartaan kale haddii kugu imaado aadan garanaynin squirrel how can you do it okay haddaba maxaa lisay isku dayday jawaabta waxay tahay rook h8 sababta uu dheelay waxay tahay haddii uu isku dayo madowga inuu dilo askarigan maxaa ku dhici doona squirrel haddii uu dili waayana waa qasban yahay meesha waxay imaan doonto askarigiga inuu dalaco oo queen noqdo marka waxaa qasab ah inuu dilo dabadeedna waxaa dhici doona squirrel example kan kale cadaanka geediga leh bal isku day sidee squirrel ku sameyn kartaa bishop b5 queentan waa qasab inay ka wareegtaa sababtoo ah qalcadaas ayaa la dili doonaa sababtoo ah queenta kama qaalisano qalcada sidaas awgeed way isku beegan yihiin hal diagonal sayran yihiin waa inay ka wareegtaa queenta dabadeedna waxaa la qaadan doonaa qalcada meeshaasna 2 point ayaa laga faa'iidi doonaa qalcadu waa 5 point bishopkana waa 3 point example-ka kalena waa kuwa uga caansan markii la joogo squirrelka sababtoo ah cadaanka inuu queen noqdo waxa ugu dhiman 1 2 blackna waxa ugu dhiman 1 2 3 balse black wuxuu sameyn doonaa squirrel sababta maxay tahay waxa isku beegan waxa hal file saaran queentii iyo boqorkii sidaas awgeed waxa meesha ka dhici doona squirrel ugu dambeyntii an squirrel waxa qasaba marka boqorka cad inuu meeshan ka wareegto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.